garoonka diyaaradaha ee magaalada Cadaado ayaa maanta lagu soo dhaweeyay Sheekh Cumar Diiriye Barre oo kamid ah culimada sida weyn looga yaqaan gobolka Galgaduud isla markaana maalmihii la soo dhaafay ku maqnaa gudashada xajka. Culimo diin iyo qaar kamid ah culimadii ka aflaxday sheekha ayaa si diiran ugu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha degmada Cadaado ee gobolka Galgaduud. soo dhaweyn kadib qaar kamid ah culimadii ka qayb gashay soo dhaweynta Sheekh Cumar oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin imaatinka Sheekh Cumar oo safar ku aaday xajka. aad iyo aad ayaan Sheekh Cumar ku soo dhaweynaynaa ku soo dhawow magaaladaadii ikhwaankaadii ahbaabtaadii aad iyo aad ayaan u rajaynaynaa ducadii aad noo soo duceydeen aad noo soo duceyday adiga mashaayikhtii kala ku raacday haddana ay socotaan in Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo aqbalo. waxaan maantay Ilaahay uga mahad celinaynaa noo suurtageliyay in aan sheekheena daliilka ah fadiilatu Sheekh Cumar Diiriye aan ku soo dhaweyno garoonka diyaaradaha ee Cadaado. sheekha wuxuu nooga yimid dhankaas iyo mamlakada Sacuudiga qaasatan xarameynka asagoo soo gutay rukn min arkaan islaam oo ah xajkii asagoo soo gutay waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala annagana Ilaahay inuu xajka ka aqbalo annagana Ilaahay barakadiisa soo gaarsiiyo ducadiisa marka saas daraadeed qofka xajiga ah ducadiisa waa maqbuulo marka annagoo rajaynaa Ilaahay inuu ducadiisa noo aqbalo asagana xajka uu ka aqbalo. ugu dambeyn Sheekh Cumar Diiriye Barre ayaa uga mahad celiyay culimadii iyo qeybihii kala duwanaa ee ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Cadaado. raggiinaan nagu soo dhaweeyay halkan oo sida qiimaha badan nagu soo dhaweeyay oo waqtigoodii in badan oo kamid ah cumrigoodii na sugayay qoraxda taagnaa ayagana mahad badan Allah gaarsiiyo khayr badan Allah idin siiyo. annaga waxa weeyaan safarkii Ilaahay waana markii hore waana nabadgeeyay kullay xarameynkii maan tagnay acmaashii xajkii aan gudanay ka bacdina waan soo baxnay haddii Ilaahay idma waana maartay wax badan waana wada joogi doonaa marka waan kaga mahad Ilaahay baana ku mahad leh adinkana waan kaga mahad celinaya man lam yashkurin naas lam yashkurillah. Ilaahay maartay naxariistiisa Allah idin furo kuwii marka ayaga sidaan oo kale safarkan oo kala galo meesha xajka umrada soo gutaa acmaasha Allah in ka yeelo annagana mafruur Allah nooga yeelo maaragtay waan isku ducaynaynaa warna waa isku ducaynay haddana haddii Ilaahay idma waa isku ducaynaynaa inga soo xogaan waqti aan daalanahay maaragtay inaan soo gaabiyaan jeclaa hadalkayga intaas ka koobo. Sheekh Cumar ayaa kamid ah culimada sida weyn uga qayb qaatay fidinta diinta islaamka waxa uu soo saaray culimo badan oo ku kala sugan Cadaado iyo deegaano ka tirsan gobolka Galgaduud. Haashim Cumar Xasan raadiyaha iyo TV-ga Shabeelle Cadaado.